soo dhawaada gabadhan nimankan waxay rabaan inay gaarigan xoog ku saartaan sababtan wax kala maana iyada baxarkan isgelisay iyada da'deedu waa 16 jir sidii qof weyn intii u soo labisatay oo ay wajiga make up soo marsatay maqaayadan iyada saaxiibadeed imaadeen sababtan wax kala ma ahan ee waxay rabtaan ninkan hooyadeed qaba inay sheeko u bilowdo si ay u kala ogaato inuu qiyaano leeyahay in kale saaxiibadeeda waxay weydiinayaan ninka hooyada qaba oo ay sheegaysa midkan miya orod hadda shaqadaada qabso aniga kaamiradeedu waa diyaarsan tahay intii u timaaday biyo ku daadinaysa kadib waxay ku dhehaysaa ma ku jeedinay iga raali noqo saaxiibadeedna waa tanaa kaamirada u diyaarsan tahay caadi waay xaafadeeda aada waa iska soo beddelaa ku dhaha laakiin way celinaysaa waxay ku dhehaysaa ma iska joogto intuu ku qalalayo haddii hadda sidan banaanka ugu baxda waxa laga yaabaa inay dadka kula yaabaan markii uu ogolaado inuu joogana way la soo fadhiisanay sheekadeedii ku bilaabaysaa marka fanaan miya tahay sheeko kale waytarkii maqaayada inta u yimaado wuxuu ku dhaha maxaa dalbanaysin isagu wax qaaliyo dalbana midaana saaxiibadeedii waxay u soo qoraysaa alaabtan qaaliga dalba camal iyadana way dalbanay xoogaa kadib midkan markii uu dhameystay alaabtii uu dalbada iyadii wuxuu ku dhaha waa soo laabana wax yar kadib 2 daqiiqo iyadana markii ay ka ogolaato wuu baxaa midaana saaxiibadeeda inta u timaaday taleefankii ku wareejinaysaa waxayna ku dhehaysaa wixii aan duubay waa daawo kartaa hooyadana waa tusi kartaa cuntadii ay markii u soo qoraysay oo ku dhehaysa dalba iyada rabtay inay cunto markii ay shaqadoodii u dhamaatay inay baxaan isku dayayaan laakiin midkii waytarka wax ku dhaha miska bixisiin lacagta bixinayo waxay ku dhahayaan anaga lacagta ma bixinayna ee ninkina la socdaa bixinayo isla markiina waxay arkayaan isagoo gaarigiisa sii wadanayo iyagoo yaabano waxa uu sheegaa iyagoo aan lacagta bixin inaysan meeshan ka bixi doonin haddii ay sidaas tahay ma bixino oo waa joogaynaa ay ku dhahayaan marka loo keeno rasiidka waxay la yaabayaan lacagta aadka u badan ee cuneen saaxiibadeeda qorshe keenaysa waxay dhehaysaa aabaha noo wacsi oo lacagta nooga bixiyo iyaduna waxay taagan tahay oo aabaha inta uu camiyaa ku dhaha qamraha maqaayad ka dalbada ee lacagtii la heestaa iga bixi kadib saaxiibadeedu waxay ku dhehaysaa waaye haddii aad qorshayga diida waxa isku diyaarisaa in alaabta dhaqno midkaan waytarka kuwan ma ka yeelayay sakasakana u fiirina inay baxsadeen in kale midaana bixisa marka lacagtii aduuna camal isaga inta u yimaadee waxay ku dhehaysaa haddii ay iyadu baxdo aniga ma joogi midkii iyaga u soo gooyay waa kana meeshan stuudiyaha uu joogaa waaba fanaankii ay iyadu sheegaysa wuxuu isku dayaa marka inuu waca taleefankeedii marar badan laakiin ma ka qabanayso mid saaxiibkiisa oo la jooga wuxuu ku dhahaa haddii ay taleefka ka qaban weyso WhatsApp-ka tijaabi markii uu WhatsApp-kiisa soo bixiyay sawirkeeda oo fiiri maaga laakiin wuxuu arkaa xaaskiisa inay la sawiran tahay isla markiina wuxuu ogaanaa gabadhan inay tahay gabadh ay xaaskiisu dhashay saaxiibadeeda intii soo wacday waxay u sheegaysaa markii ay xaafada tagtay inay xanuunsatay oo madaxu xanuunayo kana waxay ku hadlaysaa xitaa wuu dhageysanaa ugu dambeyn go'aan ay qaadanaysaa waxay isku dayaysaa inay baxdo laakiin wuu qabanaa marka koowaad inay lacagta bixiso u sheegaa kadib ay baxdo waxa lacagtii soo bixinaya iska dhigaysaa kadib meeshii iska cararaysaa laakiin nasiib xumadeeda waardiyaashii qabanaa 2 nin oo kamid ah dadka maqaayada jooga intay soo istaagaan waxay weydiinayaan gabadha maxaa kartiin maxaa ku haysatiin midkii waytarka ayaa wuxuu u sheegaa gabadhan inay rabtay inay baxsato kadib markii ay lacag badan cunto ayaguna waxay ogolaanayaan inay lacagta bixiyaan markii ay banaanka u soo baxaan waxay u sheegayaan inaysan lacagta bilaash uga bixin 16 sano jira ay ku dhaha maagaysaa laakiin waxay ku dhahayaan wajigaaga miyaad maad ku fiirin miyaad duqa u egtee kadib beenay sheegaysaa waxay taagan tahay aabaheeda dawladda u shaqeeya marka booliska inta ay idin wacin iska gidaaya iyagoo gaariga xoog ku gali rabaa waxa imaanaya aabaheed macnaha midka hooyadeed qabay asagii ugu shactireysanayaan waxay ku dhahayaan midka miyaa dawladda u shaqeeya iyo waxyaabo kale oo isaga ka xanaajinayo isla markiina meeshii waxaa ka bilaabanayo in la isku dagaal kadibna ayaga waa ku ara meeshan taagan yihiin wuxuu ku dhahaa qorshahaaga waa ogaaday ee ma waxaad rabtay in aniga itijaabiso hay ku dhehaysaa sababtoo ah aabahay hooyaday waxay uga tagtay qiyaano darteed wuxuu u sheegaa marka inuusan sidaas camal ahaynin muuqaalku inta sugaa ka dalka soo gata leegnoosa